waxaana wanaagsan ku soo dhawaada saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay guud ahaan caalamka iyo Soomaalida qodobada aad ku daawan doontaan warkeena oo caawa idin kugu haynana waxa qayb ka magaalada Baydhabo oo xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya caawa waxa ka taagan arin xasaasi ah iyadoo ciidamo taabacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta galeen ay hareereeyeen magaalada qodobada kale aad warkeena daawadayaal ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona dalka Kenya waxaa lagu qabtay bandhig weyn oo ka soo qayb galay madaxweynaha dalka Kenya Madaraka ayaa lagu magacaabaa nidaamkan ama maalintan qaran ee dalka Kenya iyadoo hal arin oo aad ugu farxisay dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Waqooyi Bari ayaan kula wadaagi doona qodobada kale aad warkeena daawadayaal ku daawan doontaan waxaa qayb ka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo gabi ahaanba sheegay in bandow lagu soo rogay magaalada Baydhabo tan iyo amaba ilaa laga qabanayo doorashooyinka halkaasi ku harsan qodobada ay kuwa kale waxaa inoogu soo kordhayad halkan ka daawan doontaa ugu horeyn soo dhawow muuqaalkan la saar saaxiibada la wadaag nasoo raaco qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran wixii artidaadana qaybta oo saartay dibashada nagu reeb inta ka soo saaxiibayaal hadii aan ku bilowno wararka aan ka helino magaalada Baydhabo caawa ayaa tilmaamaya in ciidamo taabacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo hore u ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ciidamadaasi la sheegaya inay hareereeyeen magaalada Baydhabo magaalada Baydhabo habeenkii ugu dambeeyay waxa ay ka geysanayeen weeraro iyo duqeymo iyo sidoo kale dagaal toos ah oo maalin dhaweeytaba dhacay wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadan suuragal tahay inay caawa gudaha u soo galaan magaalada Baydhabo ama dagaal ay ka geystaan magaalada Baydhabo gabi ahaanba waxa isaga soo baxay ciidamadii taabacsanaa dawladda qaar badan oo kamid ah oo huwan ahaa oo digili marifla ka goobnaa kuwaasi oo hadda deegaanadooda dib ugu noqday aadan madoobe ayaa la tilmaamayaa in loo wado madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya halka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garana wali uu aaminsan yahay in uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee dooran ee Koonfur Galbeed Soomaaliya asaga iyo ciidamadiisa dhammaan waxa ay ugu baaqeen maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidamada dawladda in ay u soo noqdaan sharciyada sidoo kale tana ay talada dhexda soo dhigaan magaalada Baydhabo ay isaga baxaan laakiin intii ka horeysay ay dagaalami doonaan wax walba oo ka soo harana aysan ku aqbalaynin ama aysan ku qancinin magaalada Baydhabo caawa xaaladeedu waa allow sahal wararkuna waxay ka soo kordhay waxa noqon doonta qafka ugu horeeyay oo halkan ka daawada mar walba nala joog sidoo kale hadii habeen ku tahay habeen wanaagsan hadii ay maalin ku tahay maalin wanaagsan inta ka soo saaxiibayaal hadii markan aan eegno gobolka Waqooyi Bari ee Soomaaliya ama gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ee dhulka Soomaaliyeed ee ay degaan Soomaalida maanta waxa lagu qabtay maalinta weyn ee qaran ee Madaraka ee dalka Kenya Madaraka waa maalinta awoodda iyo guush waxaana loo magac daray kowda June ama waxa la xusaa kowda June sanad walba sanadkii 1963 kowda June ayay ahayd markii ugu horeysay ee dalka Kenya ama maamulka Kenya loo ogolaaday in ay iyaga ismaamulaan iyadoo bilooyin kadib ama 12 December sanadkii 1963 toos xornimadu u siiyay Ingiriiska maalintan maadaama ay tahay maalin qaran inta badan waxa lagu xusaa gobolada qaar maanta waxa lagu xuseeyay gobolka Waqooyi Bari Soomaaliya iyadoo sida halkan mideen kaga muuqata uu ka soo qayb galay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto maanta Soomaalida aad ayuu ugu sheekeeyay sidoo kale waxa uu ku tilmaamay inay yihiin dad wanaagsan gob ah dalka Kenya ka tilmaaman hal qodob oo weyn ayuu sidoo kale hoosta ka xariiqay waxa uuna sheegay in warqadii uu soo saaray madaxweynihii hore ee Jomo Kenyatta ee gabi ahaanba diideysay dalka Soomaaliyeed deegaanada ay degan yihiinba in nidaamyada horumarineed ee dawliga la gaarsiiyo uu aad ugu xun yahay dhawaan ayuu dikraadadaasi ka qaaday dikraad kale ayuu soo saaray tan iyo markii uu yimidna dhammaan kaabayaasha dib u dhiska dalka gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ayuu kor u qaaday madaxweyne William Ruto sidoo kale waxa uu ka raaligeliyay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari dhibaatadii loo geystay dhowrkii sano ee aad ku badnaa warqadaasi ayuuna markaasi aad ugu cudur daartay maanta dhanka kale waxa uu ku dhawaaqay hal arin oo la yaab aheeday oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee halkaasi joogtay aad u soo dhaweeyeen William Ruto waxa uu sheegay dhammaan madaarista gobolka Waqooyi Bari Soomaaliya ee dugsiyada Quraanka in macallimiintooda budget loo sameeyo sidoo kale tan ay mushaarka dawladda bixinayso waa macallimiinta dugsiyada Quraanka iyo madaarista guud ahaanba waxa uu sheegay in madaaris kale oo aad u badan la sameyn doono sidoo kale tan ay dawladda dhisayso qarashkeedana bixinayso William Ruto waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Kenya kaasi oo dadka Soomaaliyeed aad u soo dhaweystay dawladdiisina ka siiya xubno ama xubin sarsare sida wasiirka caafimaadka
wasiirkii difaaca wasiirka caafimaadka hadda uu yahay uu hore usoo noqday iyo sidoo kale taliyaha sirdoonka iyo mas-uuliyiin kale oo hadda halkan lagu soo koobi karin. waxaa muuqanaysa in William Ruto dadka Soomaaliyeed uu wax badan u qabtay sida in jinsiyadda uu ogolaaday sidoo kale tan baasaboorka si fudud ay hadda ku qaadan karaan qof walba oo Soomaaliya oo gobolka waqooyi bari ku nool taasi oo awalkii hore loo ogolayn. qodobka wixii artida qaybta wasaaradda dibashada nagu reebay markana saaxiib yaal haddii aan eegno magaalada Baydhabo waxaa maanta lagu dhawaaqay in bandow laga dhigay laga bilaabo 7 subaxnimo laga bilaabo habeenkii maqribkii ilaa iyo 7 subaxnimo ama halka saac oo subaxnimo. dhanka kale waxaa cafis loo fidiyay dhammaan cid walba oo ka soo horjeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee hadda jira waxaana loo dardaarmay in cafiskaasi ay ka faa'iideystaan. waa kan balay daaw guud ahaan magaalada Baydhabo u dhaqan gala doone bandow lagu bilaabo oo ka halsaa waana dareero doona ilaa salaado subax laha ku tukado tumay koosa wayna dareero doona bandowgaasay ilaa amar damb qobka mas'uuliyiinta dawladda Koonfur Galbeed siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed iyo shirkadaha ka shaqo leh amaanka hay'adaha caalamiga iyo UN-ka maylanka baaqay in hubsho haddii waan geliyaan lagu bilaabo bariyay taariikhda lama ku bilaawado iyo haddii waan geliyaan oo cafis lamfaday oo kooyan de welina cafiskii furanyi waana weel azuume kiilanka kooyna meel han dhawaay doonaa salaab furan walaalnimo ka jarta oo dawladnimo ka jarta. Raxiim geeko oo taariikhda kowga balali had 2020 maynin qof sameeyay shirki amniga oo lagu hadalay arrimaha amniga Koonfur Galbeed guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Baydhabo oo doorasho u socota shirka may ku qayb galay saraakiishii qaybaha oo militariga iyo booliska iyo nabad sugidda mayna xukuumaha go'aanada adag go'aanadaas oo fadlan in la wadaagno shacabka reer Koonfur Galbeed meel biyo rogan ku hor laakiin ma fadlan in ma handagna guud ahaan ciidamada qalabka sida haddii hada fadlan militariga booliska iyo nabad sugidda oo maalin iyo hameen hanjeedan iyo difaacan nabadda reer Koonfur Galbeed guud ahaan gaar ahaan siyaasiyiinta iyo shacabka iyo ganacsatada haweenka iyo ciyaalka oo ka nool magaalada Baydhabo oo doorasho ku dareerta hanjeedan hameen maalin ma fadana qaasatan ma fadanaha geesiyaashii oo maalin dhaweyd ku jawaabay sida geesinimada lan ku jawaabay falkii fulinimada hay oo la ka abuuro la faday in qalqal amni la kasoo bi magaalada Baydhabo oo doorasho ku dareerta geesiyaalkii ku jawaabay nagana waluna ka faraxsanayn in dhalinyaro iyo ciidan oo dalkan deegaankan shaqeeya jiray geedka weerarka gaadan meelowga iyo amniga ku shaqeeya jireen balooyinka hor waluna ka faraxsanayn iyo ka dhamadan ka dhaawacman waluna ka faraxsanayn mayna horeeylanka baaqay oo mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ka horeeyo mudane Jibriil hogaamiyaha ku meel gaar Paris ku bilaawdo doonto lagu bilaabo taariikhda lama balalihaad 2020 in Paris ku bilaawdo doonto guriyaha lan araga in la baarak hore amniga qalqalka ama threadka iyo xarumaha kale oo lan araga in la baarak hore may ku bilaawdo doona Paris iyo guud ahaan madaxda kale ee qaranka iyo haan dawlad goboleedka banka baaqanaha in oo cafis lamfaday oo kooyan de welina cafiskii furanyi waana weel azuume kiilanka kooyna meel han dhawaay doonaa salaab furan walaalnimo ka jarta oo dawladnimo ka jarta. intaas maduna ugu gudubna geeka shirkamaha ku baxay go'aano oo la fadaaw in la ka ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta reer Koonfur Galbeed haansho ka soo magaalada Baydhabo silan ilaaliyo amniga doorashooyinka iyo hantida iyo dhiigga shacabka Soomaaliyeed ba may habahay qodobada hoos ka xusan kow may guud ahaan magaalada Baydhabo u dhaqan gala doone bandow lagu bilaabo oo ka halsaa waana dareero doona ilaa salaado subax laha ku tukado tumay koosa wayna dareero doona bandowgaasay ilaa amar damb may fadana dadka safaylan deegan lagu bilaabo oo taariikhda kow ata
belle juun 2020 may bilaawado doonee bandow oo magaaladan baydhabo laga kasugaw amaansha doorashada iyo dhiigga shacabka iyo hantada shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed mayna socdo doonee ilaa ay amar dambe oo dawladda aan ku aragaasa in la troojiyo koro bandowgaasi iyo hamiinkii hal saa ilaa 12 saa salaado subax dareeraw qodobka labaad hubka mas'uuliyiinta dawladda Koonfur Galbeed siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed iyo shirkadaha ka shaqo leh amaanka hay'adaha caalamiga iyo UN-ka maylanka baaqay in hubsho haddii waangeliyaan lagu bilaabo bariyay taariikhda lama ku bilaawado iyo haddii waangeliyaan diiwaangelintaasi mar badan la ka baaqay warbaahinta lagu sheegay golaha wasiirada kubati maylanaham geeka waa maalintii ka dambeeyay oo wasaaradda amniga iyo oo sheegaysa qodobadii amniga shirka amniga kubay sheegaysa faraanaha dadka mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta iyo shirkadaha amniga ka shaqo leh iyo haddii waangeliyaan hubka oo isku leeyihiin qodobka saddexaad waa in baaris ku bilaawdo doonto lagu bilaabo taariikhda lama ballihaad 2020 in baaris ku bilaawdo doonto guriyaha lan araga in la baaro karo amniga qalqalka ama threadka iyo xarumaha kale oo lan araga in la baaro karo may ku bilaawdo doona baaristaasay baaris lankadan lay shakhsiyaad ma baaris lankadan lay muxaafad iyo mucaarad ma waa baaris amniga muwaadiniinta iyo doorashada la ka sugaaw marka shirka amniga oo krogan taliyaasha qaybaha guud ahaan nabad sugidda iyo booliska iyo militariga ma ku bahay in oo la baara lagu bilaabo taariikh lama balan oo geeka kow barhey lagu bilaabo may baaris ka bilaabo doone guriyaha magaalada Baydhabo si guud isa gaar bol ambaar doon qodobka afraad ma tahay in qof walba oo kumid falaagada banaanka kama qano de maalin weytiba hawaarti magaaladan si qalqalan galida amniishe magaalada Baydhabo iyo doorashooyin sheeba maylanka baaqay mar lamaad in oo hastanis diiwan dawladdiyo an kooyan maamulsho de maamulkan waa maamulkii shalay isin ku shaqeeyeen amnishe alqaacida iyo argagixisay iyo qawaarij hoostiya megan masiinagadaas marka noolada kortaan maylanaha kooya dalkiin iyo deegaankiin eesin baahana halkooy hanay shalay hasdhiibi oo shalay iriidaha ay kooy oo dhowrka qof haye hawaraysada nololiyo ka noolin email rogan maalin walba dadkooyahay doorka say masan anfacaaso jaqdaasay marka noolada kortaan nololi oo hooyooyinkiin iyo abyaalkiin siin ka tala galeen ma dawladna nolol siin ka tala galeen ma maylanaha kooya deegaankiin kooya dawladna kooya ugu dambeyn Koonfur Galbeed muku furun mana taale Google dega may taalehe Google doorasho i Google lankwada hadalaw siyaasad lanki siyaasad i kursi baahan Koonfur Galbeed an furunta hobba shalay lanki siyaasad kaliya danayow Koonfur Galbeed ku hirinay oo la lahay muku hadala korto oo la lahay mucaarada korto oo la lahay mahadiga korto geeka lankan ka mucaarasan ya an furunta magaalada kooyo kora ka dawaha kora aragtadaano dhaliilo kora ajandigaano ku hor kooyo kora laakiin yeeo dagaal dhanka jaran hubban hor dara diidma kasta oo hubka hor jara dawlad goboleed Koonfur Galbeed iyo ciidamada amniga ku howlgalaw deegaanada Koonfur Galbeed ma aragayanaha mid lika taageero ajanda alqaacida iyo aad iyo ma santaad in la soo gaarto waxa tahay saaxiib wanaagsan muuqaalkan la saaxiibada la wadaagna soo raaco qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran wixii arsidaadana qaybta oo saartay dhawshada noo warab salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh